Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar ayaa markii ugu horeysay ka hadlay qorshayaasha diblomaasiyadeed ee ay dardar gelisay muddooyinkii ugu dambeysay Somaliland iyo waliba baadigoobka ay Somaliland ugu jirto aqoonsi. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo xidhiidh kasta oo Somaliland ay la sameynayso dalalka caalamka, isagoo hoosta ka xariiqay isla markaasina cod dheer ku sheegay in ay soo dhaweynayaan in ay Somaliland sida ugu dhaqsaha badan leh beesha caalamka uga hesho aqoonsi. Waxaanu taasi ku sifeeyay in ay guul weyn u tahay dhammaan ummadda afka Soomaaliga ku hadasha, maadaama dal ka mid ah dalalka Soomaalidu uu aqoonsi muddo dheer u baadigoobiyay ka helay beesha caalamka. Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sidaasi ku sheegay qoraal kooban oo uu ku baahiyay baraha bulshada, gaar ahaan page-ka uu ka isticmaalo barkulanka ay bulshada ku kulanto ee Facebook. qoraalkaasi uu Mustafa Maxamed Cumar ku soo dhaweynayay isla markaasina uu ku sheegay inuu faraxsan yahay xidhiidhka wanaagsan ee beesha caalamka waqtigani ay Somaliland la sameynayso, iyo waliba sida uu ugu faraxsan yahay in ay Somaliland hesho aqoonsigeeda waqtigani. qoraalkaasi ayaa u dhignaa sidani: walaalaheena Somaliland in ay dunida la macaamilaan kana helaan aqoonsi, aad baanu ugu faraxsannahay dal kale oo Soomaaliyeed oo dunida laga aqoonsan yahay. guul weyn ayay noo tahay ummadda Soomaaliyeed. qoraalkaasi ayaa lagu soo gabagabeeyay xafiiska madaxweynaha Somali State Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar. isku soo wada duuba hadalkani Mustafa Maxamed Cumar ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeysay Somaliland ay dardar gelisay xidhiidhada kala duwan ee ay la sameynayso dalalka qaar ka mid ah dalalka Afrika, kuwaasi oo iyagu diyaar u ah isla markaasina waqtigani diyaar u ah inay qalinka ku duugaan aqoonsiga ay muddo dheer Somaliland ka raadinaysay beesha caalamka, iyadoo ay mudan tahay tan ugu dambeysay ee hadal haynta badan dhalisay oo ah socdaalka uu madaxweynaha Somaliland ku tagay dalkaasi Guinea, taasi oo si heer qaran loo soo dhaweeyay isla markaasina lagu qaabilay soo dhaweyn meeqaamkii ugu sarreeyay, iyadoo waqti xaadirkan uu ka soo laabtay wafdigaasi dalka Guinea kuna sugan yahay dalka Itoobiya, iyadoo halkaasi ay si meeqaam sare ah leh ugu soo dhaweeyeen madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar iyo waliba wasiirka horumarinta maaliyadda ee dowladda federaalka Itoobiya Masdar Ahmed Shide. tallaabadani uu Mustafa Maxamed Cumar ku sheegay inuu ku faraxsan yahay in ay Somaliland aqoonsigeeda hesho iyo waliba sida uu soo dhaweynayo xidhiidhka ay caalamka la sameynayso ayaa ku soo aadaya xilli Somaliland ay wadamada jaarku u tartamayaan in ay safka hore ka noqdaan dalalka iyagu ku in ay Somaliland tahay dawlad madax bannaan oo ka go'day Soomaaliya, isla markaasina ay sidaasi ku itiraafsan yihiin. haddaba maadaama oo Mustafa Maxamed Cumar uu isagu sidaasi u soo dhaweeyay, waxaa xusid mudan bal in aynu isbarbar dhigno aragtida madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo aragtida madaxweynaha maamulka Muqdisho oo isagu ka marar dilaacay isla markaasina guntiga u xidhay dibindaabyo kasta oo uu albaabada kaga soo oodayo Somaliland, halka madaxda kale ee Soomaalidu ay aad ugu faraxsan yihiin. waana su'aal u wada taala dhammaan ummadda ku hadasha afka Soomaaligu in ay isweydiiyaan isla markaasina ay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan. tusaale ahaan sida labadan mas'uul ee Soomaalidii midna ugu farxay midna uga naxay una cunsuriyeeyay dal kale oo walaalihii ah ama ummad Soomaali ah. daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaasi waxaan ku soo gabagabayn doonaa warbixintan kooban. waxay idinla socodsiinayeen anigoo ah Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Jubba. inta aynu warbixintan la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu iyo amaane alle. waxay iga xusuusinaa wixii dambe ee warar ka soo kordhaa arrimahani waxaad kala socon doontaan YouTube channelkeenani. hana hilmaamin muwaad share and like lana wadaag asxaabtaad jeceshahay inay daawadaan muuqaalkani. qaranka dhidibada dad baa u dhigo u shuba dhiigo nabadda dhaliye. qaranka dhidibada dad baa u dhigo u shuba dhiigo nabadda dhaliye. qaranka dhidibada dad baa u dhigo u shuba dhiigo nabadda dhaliye. qaranka dhidibada dad baa u dhigo u shuba dhiigo nabadda dhaliye. miyaan dhib yaraan ku dhibay calanko
riyada iska dhaaf maantoon dhisanahay maantoon dhisanahay maantoon dhisanahay maantoon dhisanahay maantoon dhisanahay madheeliiside dhankayga haddaan dhaqaala helana dhibkuma aho ma dhaawacmayside samaad ka dhaxye riyada iska dhaaf rumbaan ku dhaqmaa taariikh dhigano rumbaan ku dhaqmaa taariikh dhigano dhaydii xornimaa nabada ku dhammaa 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 dhulkeenna bulshooyinaan dhisannaa ninkay dhibayse cilada ka dhurma ninkay dhibayse cilada ka dhurma midnimadii maabtuu ku sii dheganye dhaagaha ugu rida inaana dhacayn dhagaha ugu rida ugu rida ugu rida dhagaha ugu rida inaana dhacayn dhaagaha ugu rida inaana dhacayn dhagaha ugu rida ugu rida ugu rida dhagaha ugu rida inaana dhacayn dhulkeenna bulshooyinaan dhisannaa ninkay